السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحب الكسور هذا بيتكينا أكاديميين جوار فضلا ديتا مركي كورة هالكان صوب بوقتي فضلا سبسكرايب صار ولاك تنوفر ما هذا برنامج كينا عيارة وحنقصو خاض دونا نيوكاسل ayaa Liverpool ka diiday dalab furitaana oo dhan 120 milyan oo euro kaasoo ay ku doonayso saxiix xidig Alexander Isak. Liverpool ayaa Alexander Isak ka dhigatay bartilmaameed koowaad si ay ugu xoojiso weerarka ciyaareedka cusub. Fabrizio Romano ayaa sheegay in Newcastle diiday dalab 120 milyan oo Liverpool ka gudbisay saxiixa. Newcastle ayaa diiday dalabka sabab la xiriir in ay marka hore doonaysay inay la soo saxiixato bedelkiisa. Newcastle Alexander Isak ayaa uu sheegay in uu doonayo inuu ku biiro Liverpool kal iibsiga xagaagan. dhanka kale suuqa laba hal hadaan ka sii dhaano kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa doonaysa saxiixa daafaca khadka dhexe ee Inter Milano kaasoo lagu magacaabo Bastoni. Chelsea waxay haysataa weeraryahan tayo sare leh iyadoo khadka dhexe aad u xoogan iyadoo guusha ay ka gaareen kooxaha adduunka waxay muujinaysaa waxqabadka iyo awoodda sare ee kastaba ha ahaatee difaaca Chelsea waa halka ugu liita marka loo barbar dhigo kuwa kale. Chelsea waxay hore u haysatay daafac mustaqbal fiican leh oo kala ah Lewin Colwill balse tababaraha Enzo Maresca wuxuu sheegay in kooxda ay u baahan tahay ciyaartoy waayo arag ah waxaana Bastoni noqon karaa ciyaaryahanka buuxinaya boosaskaas banaan. Bastoni waxa uu kamid yahay daafacyada dhexe ugu wanaagsan kubadda cagta waxa uuna kooxdiisa Inter Milan kala qayb galay guulo waaweyn sanadihii ugu dambeeyay dhammaantoodna waxa uu kula mid yahay difaacyada ugu waaweyn kubadda cagta markii loo fiiriyo. Bastoni haddii uu ku soo biiray Chelsea waxay noqon doontaa koox aad u xoogan waxayna ku tartami doontaa dhammaan tartamooyinka ay ka qayb gali doonto. fadlan haddii markii kugu horeysa halkaan soo booqatay fadlan subscribe noo saar oo like noo saar gambaleelka inuu furo aad u mahadsan tahay qabashada muuqaalka xiga waxaa idinka tegi doonaa bilaha tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.